السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا channel كيغا مغعيغا waxaa waaye tutorial ikran duuciga wuxuu ku saabsan yahay ardayda oo iskuulaadka soo dhameeyeen oo rabaan inay jaamacad galaan oo ku fakiraayo waxyaabo badan oo la bartaa jirtay maxaa barataa ama ku fakiraayo sidee u doorataa wax adiga ku anfacayo qof walba shakhsiyadu leeyahay qof walba waxyaabo uu jecel yahay jirto sidee ku ogaanaysaa marka adiga waxa ku anfacayo for example iyo yani waxa rabtid inaad baratid iyo dabeecadaada miskeeni doonaan ma fahamtay because qof walba dabeecad uu leeyahay qof walba wuxuu ku fiican yahay jirto dadka qaar indhahay wax ku bartaan dadka qaar gacanta inay ka sameeyaan wax ku bartaan dadka qaarna inay hal mar maqlaan wax ku bartaan sidaas darteeda waxa u baahan tahay inaad adiga naftaada marka hore aad taqaanid si aad u dooran kartid waxa is dhehaysid mustaqbalka baro knowledge hadda soo baxday oo wax walba adaaba ogaan kartid internetka inaa gashida ka xigto inaa ogaatid meeqa maada la bartaa jirto meeqa cilmi oo la bartaa aad jirto adduunyada iyo inaa ogaatid mid adiga ku anfaceyso oo maanta Soomaali looga baahan yahay marka maanta ani waxa rabaa inaa wax yar idin kaga sheego waxyaabaha oo Soomaali looga baahan yahay kala daatay arday Soomaali ah soo ani marka ugu horeysaba ardaydu waxa ku dhiirigelin lahaa inay baaritaan sameeyaan baar waxa aad rabtid inaad baratid meeqa takhasus uu leeyahay si fiiri takhasuska adiga ku anfacayo oo mustaqbalka aad rabtid inaad si sameysid waa si ogaanaysaa mid xigto waxa waaye ardayda waxa rabaa inaa u sheego ardayda rabaan inay wax bartaan probably anaga Soomaali hadaan nahay waxyaabaha ugu badan aan maqalno oo yani niyada naga jabiyo waxa waaye wadanka shaqo la'aan ka jirto jaamacadaha ardaydu way ka soo baxeen laakiin waxay ka shaqeeyaan ma lahan taasna waxay nagu keeni kartaa ardayda qaar inay ka niyad jabaan aysan wax dhan aysan baranin isdhahan maxaa ka faa'iideysaa maanta waa kana walaalka oo hadda jaamacad ka soo baxay maanta shaqo la'aan uu yahay ama qabiil ahaan lagu soo takooray so wax la iska xamaalo maxaa ku geenayba inaa maxaa la dhahaa sheeg yani wax baratid oo jaamacad ka soo baxdid marka waxyaabahaas niyad jabin oo keenaysa marka waxa markasta fiican inaa is soo xasuusino wadankeena mala barbar dhigi karno wadamo kale oo horumar gaaray ma fahamtay wadamo kale oo maanta intee yani horumarkoodii ay gaareen dadkooda inay shaqo wada siiyaan sanad kasta shaqooyin cusub u soo saaraan dadkooda ayagoo shaqo leh oo hadana dad sii codsanay dhahay dad rabnaa inay noo shaqeeyaan marka anaga ma la barbar dhigi karno wadankeena tilaabadiisa wadamo kale oo yani dhibaatada anagana soo martay iyo dib u dhac weyn anagana soo maray aysan ku dhicin oo kale sidoo kale tan waxa waaye ina is soo xasuusino sheeg anaga alxamdulillah shukrillah maanta waxa ku taaganahay jaranjarooyinka ugu horeey tilaabooyinka ugu horeey horumarka lagu gaari lahaa marka ina ka niyad jabna ma ahan wax walba aad bararno maanta waxay rabtaa ahaato wuuna anfacayaa mustaqbalkeenu anfacayaa mani waalidkeena inaan wax tari karno anfacayaa mustaqbalka wadankeenana ina horumar gaarsiino oo la tartansii karno wadamada caalamka soo marka anaga hadda bilownahay ma ahan ina ka niyad jabno waxbarasho ma ahan inaa ka niyad jabno shaqo la'aanta wadanka ka jirto sheeg insha Allah waxaan way isbedeli doonaan dad badan hadda ka hadlo siday qabiilka ay u saameyso ardayda wax baratay marka waxa rajeenayaa isbedel inuu dhaco awareness kan iyo maxaa la wacyigelintan socotana inay yani wax ku ool u noqoto dadka badan oo Soomaaliya ku nool waxaan rajeenayaa sanadaha soo socdo in dadka lagu tixgelin doono maxay haystaan shahaadooyinkooda waa maxay meeqa imtixaan ay galeen sheeg maxay qaban karaan in lagu tixgeliyo inta lagu tixgelin lahaa qabiilku yahay yuu yahay waxaan rajeynaa insha Allah wadankeena inay shaqooyin badan soo bixi doonaan oo dawladeena inay insha Allah mar dhow ay xooga saari doonto sidee marka dhalinyarada uga faa'iideysan kartaa sidee markaan dhalinyarada shaqooyin ugu soo abuuri kartaa Ilaahay wuxuu dhahay ana cinda danni abdi bi Ilaahay wuxuu dhahay aniga abdigeyga wuxuu ana iga fisho uu leeyahay ma fahamtay soo rabo asaga iga fisho soo markasta anaga waxa waaye inaa Ilaahay wax fiican ka rajeyno markasta Ilaahay ina ka filano inuu maxaa la horumar uu gaarsiinayo hadee wadankeeni tahay shakhsiyan hadee tahay soo waxna niyadayaan iska dilin sababta wax walba Ilaahay gacantiisa ku jiraan anaga ka filano uu noo sameeyna soo waa ina Ilaahay ka filanaa wax fiican marka wax baranayno waa ina is soo xasuusino ani waa dadaalaya inta kale Ilaahay u dhaafay ma fahamtay because Ilaahay hada wax fiican ka filatid oo taladana ay Ilaahay saaratid yani wax ka halaabay ma jirto soo talada Ilaahay saarano waxbarashadan yaanaan ka niyad jabin wadankeenana hadduu horumarka yani tilaabooyinka horumarka ugu horeey hadduu qaaday soo
isku diyaarino sida oo uga faa'iideyn lahayn wadankeena anaga nafteena u faa'iideysan lahayn sida wadamada caalamka ula tartami lahayn. marka videoga hore u sii galo midda ugu horeysa waxa waaye business administration waxa waaye maamulka ganacsiga. maamulka ganacsiga bas yani maamulka ganacsiga ma ahan asagana waxa cilmi oo waxa waaye bad saa idin sheegay wax walbo yani ay isdhahayd maanta jaamacad ka dhigo waa bad markaa gashid intaasoo takhasus uu leeyahay oo yani waxaanu dhan waa wax wadankeena yani zaaid u qabo. business administration marka hadda idin sheego waxa waaye management leadership oo kaleeto. leadershipka waa taqaanin ma lidin kaga sheekeynayo waxa waaye inaad tahay qof mas'uul ah oo meel dhan mas'uul ka noqon karo. organization behavior inaad wax organize gareyn kartid oo dad aad hagi kartid ama mashruucyo aad hagi kartid iyo strategic decision making inaad yani go'aano inaad qaadatid ee ku xiran tahay managementiga daa maqashid waa qof oo leadership ah qof go'aano qaadan karo oo maxaa la dhahaa isheeg wax hagi karo hadday dad tahay waxa la hagaayo hadday tahay mashruucyo waxa la hagaayo in la hagi karo. sidoo kale waxaa soo hoos galo managementiga financial and accounting financial analysis oo kaleeto maanta shirkadaha oo yani adduunka ka jiro ma ka shaqeyn karo qof yani iska caadi ah waa qof soo bartay finance inuu ka shaqeeyo ma fahamtay wadankeenana waa wadan hadda suu u socdabo maxaa la dhahaa ii sheeg yani shirkado cusub soo bixi doonaan warshado cusub soo bixi doonaan marka waa dad inay soo baxaan oo yaqaano maamulka lacagta financeka financial analysiska budgetingka sida wax lacag loogu dejiyo kaleeto financial reportingka sida loo report gareeyo lacagaha soo galay iyo lacagaha ka baxaayo kaleeto waxaa soo hoosgelaya maxay jecel yihiin dadka inay daawadaan branding sidee magac loogu sameeyaa shirkad digital marketing maanta adduunka wax walba wuxuu noqday digital marketing dukaamankii waxay isku bedeleen digital inaa ka fiirsan kartid online waxa aad rabtid inaad gedatid online aad ka gadan kartid. waxaa soo hoosgelaya business administrationka operations waxa la dhaho iyo supply chain logistic production for example waxaan oo degadaha kasoo dego kaleeto oo u qaabilsan wadamo kale wax laga dalbo kaleeto oo wadanka imaanayo efficiency and optimization af Soomaali sida lagu dhaho waxyaabaha qaar ma garan karo laakiinse waa iska fahmi kartaa. waxaa soo hoosgelaya economicska sidoo kale waxaa soo hoosgelaya entrepreneurship ina adigaba la imaan kartid entrepreneurship ina adigaba wax la imaan kartid soo hoosgalayso ina ganacsi adi furan kartid plan gareyn kartid ganacsi ina startup management sameyn kartid ina xitaa heer waxa gaari kartaa dadka ka caawin kartid inay bilaabaan ganacsiyo oo u soo dejisid waxyaabo ay sameyn karaan. waxyaabaas waxaa la dhahaa business planning innovation and maxaa la dhahaa startup management. sidoo kale waxaa soo hoosgeli karo human resource wax la dhaho oo ayadana ah inaad dadka sida shaqaalo in dadka yani sidee shaqaalo u dooran karaan ee dadka u shaqaaleysiin karaan sidee shaqaalahaas loo tababari karaa iyo labor lawska iyo dadkaas shaqeynayo xaqooda maxaa waaye iyo xaqi ayaga laga rabo inay sameeyaan inaa yani wax la dhahaa jirto ethics waxaa waaye adoo dadka ku xadgudbeynin sidee wax loo qabtaa. sidoo kale waxaa soo hoosgelayso international business global training inaa wadan kaleeta la sameyn kartid ganacsi yani hadda wadanka shiinaha ganacsi la sameeyaa so global trading loo yaqaana waxyaabahaas oo kaleeto iyo data analysis wax la dhaho data analysis shirkad kastee muhiim u tahay shaqo kastee muhiim u tahay isheeg waana waxyaabaha maanta wadankeena oo yani ku yaryahay dadka soo bartay. marka waxaan soo tirinoo dhan waa wax adiga hadhow kusii takhasusi kartid isheeg wixii adiga markaas ay isdhehaysid personalitygaaga iyo dabcigaaga qofka taada istaqaanide maxaa ku fiican tahay hadaa tahay qof oo yani ku fiican inuu fikrado cusub keeno hadaa tahay qof ku fiican leadershipka hadaa tahay qof ku fiican kala xalinta dadka isheeg hadaa tahay qof luqado badan yaqaano oo ku fiican global trading inaa wadamo kaleeto ganacsi lala sameyn karo iyo wadankeena xiriirkiisa yani waxay ka dhigan tahay inaa fahamtid naftaada inaad dooratid waxa aad rabtid inaad baratid. midda xigto waxaa waaye engineerinka kaliya ma ahan shaqooyin quseeyo dhismaha sidoo kale waxaa waaye IT-ga computerka xitaa dadaa soo saara engineeraha soo saara computerkana ujeedid telefoonka
waxyaabahan oo dhan yacni teknolojiyadana ujeedid dhan qof engineer leh sameynayo. Marka engineering kaliya maahan qof dhisaayo guri. Engineeryadana ujeedid waxyaabo badan oo lagu sii takhasusi karaa sii jiro. waxaa ka mid ah civil engineering, mechanical engineering, electrical engineering, computer engineering, industrial engineering, environmental engineering. marka engineering kaliya wuxuu u kala baxaa intaasoo qeyb. warshado inuu soo saari karo qofka hoosgalayo, inaad dhismooyin ka qeyb qaadasid. dhismaha kaliya bad sii ma fahamtay, dhismaha laamiyaasha, dhismaha guryaha, inaad shaqadaysid kaliya dhismaha dadaa ku shaqaysto. so ma ahan inaad ku fikirtid dhismo bas waaye, waa bad dhan. mashiinkii oo kaleeto, mashiinadoo kaleeto sida loo sameeyo, electronicska oo kaleeto, alaabta electronicska iyo telecommunication, teleefanadan oo kaleeto dadaa maanta soo saaray. midda xigto waxaa waaye computer engineering, software inaad sameyn kartid, hardware, networking, cyber security. maanta cyber security aaday muhiim u tahay, interneta wax walba laga isticmaalaa. so ammaanka internetka waa wax oo aad iyo aad muhiim u ah. Soomaaliya oo kaleeto ay u baahan tahay mustaqbalka inay usoo baxdo dad badan oo sameyn karo cyber security ama ammaanka internetka. maanta dadka waxay iska weeraraan waa internetka. waa laga soo tegay in physical laisku weeraro. waxay noqotay sheekada yacni in oo through the internetka in wax laiskugu soo sameyn karo, ma fahamtay. hadda waxaa maqlayay wareysi oo yacni la sameynayay oo ku saabsanay in oo hadda dadka loo baahneenbo in oo yacni bam lagu soo tuuro, oo dadkii la hagareyn karo systemka gurigooda, lagu qarxin karo fridge-kooda, ama lagu qarxin karo computerkooda ama teleefankooda, ma fahamtay. isheeg hadda adduunyada marka way ka tagtay inay isku ataagaanba si physical ah. internetkaasaa lagaa soo ataagi karaa. midda kaleeto waxaa waaye cilmiga kale oo jaamacadda aad ka baran kartid oo asagana zaaidka ku anfacayo waxaa waaye cilmiga beeraha. cilmiga beeraha agriculture-ka wuxuu u fiican yahay hadda adduunyada casriga lasii gaaro, waaba lasii horumaraybo. waxaa la bartay sayniska oo maxaa la lahaa sheeg oo agriculture-ka la bartay. waxaa la bartay sida ugu fiican oo loo soo saari karo waxyaabaha beeraha kasoo baxo, iyo ciid kasta waxa ay ku fiican tahay hadda si fiican loo sii bartay. marka taasna waxay kaa caawinaysaabo in aad si fiican uga faa'iidi kartid wadanka, because wadankan wuxuu leeyahay ciido kala duwan, wuxuu leeyahay meelo kala duwan. qofkii barto waxa ku saabsan inuu wax soo saar soo sameyn karo, ma fahamtay. haddaa baratid cilmigaas oo ku dabaqdid waxaa ka gaaraysaa horumar weyn. marka waxaa muhiim ah inaa ogaataa cilmiga beeraha inaysan ahayn cilmi sahlan. asagana waxaa soo hoosgalayo maareynta ilaha dabiiciga ah iyo ganacsiga cuntada. yacni inaad ka ganacsan kartid cuntada oo hadhow dibadaha xitaa aa u diri kartid, iska dhaaf dalka dhexdiisa. waxaa soo hoosgalaya agriculture-ka wax la dhaho crop science. so inaad baratid kaliya ma kaa caawinayso science-ka inaad baratid, waxay kaa caawinaysaa xitaa markii lasoo saaro sida loo sii manage gareeyo inaad baratid soil science, oo ah inaad fahamtid ciidda caafimaadka leh, ciidda oo la bacrimin karo, iyo wax la dhaho sustainable land management, inaa dhulkaas ciiddaas aa manage gareyn kartid. sidoo kale agriculture-ka waxaa soo hoosgalayso inaa life stock manage garaysid, inaa xayawaanadii manage garaysid oo kamid ah isheeg anaka ariga, lo-da, geelka, waxaasoo dhan caanahay soo saarayaan, maamulkoodoo dhan aa lagu baraa. annakane wadankeena faa'iido weyn laga helaa oo xitaa dibadahana loo sii dhoofiyaa. sidoo kaleeto waxaa jirta waxa la dhaho agriculture economy, ayadana ah inaa analyze garaysid lacagta soo galayso, lacagta baxayso. maamulkaasna cilmi la bartay waaye. teknolojiyadaas cusub oo loo isticmaalo farmingka ayadana zaaid ay faa'iido u tahay. hadda caalamka wuxuu gaaray heer uu isticmaalo drone suubiyaha loogu shubo beerahoo kaleeto. awal waxay ahaan jirtay in oo tubooyin la bixiyo ama jidad yar loo bixiyo beerihii. hadda waxaas waa laga tegay, ama inuu qof uu sameeyo biyaha. caalamka uu sii horumarooya. midda xigta waxaa waaye inaad ka baran kartid jaamacadda sharciga iyo siyaasadda, law and politics. taasna waxay kaa caawinaysaa inaad baratid xirfadaha la xiriiro sharciga iyo maamulka dowladda. jaamacaddan waxaa ku baran kartaa sida lawyer aa u noqon lahayd haddaa rabtid inaad lawyer noqotid oo kale. ninka xaakimka oo kaleeto oo judgeka inaad judge noqotid. sidoo kale waxaa soo hoosgeli karo wax la dhaho political administration,
oo ah maamulka maxaa la dhahaa isheg siyaas inaad dowladda ka shaqayn kartid, inaad sharci soo dejin kartid, inaad samayn kartid public administration iyo diplomacy. sidoo kale waxaa soo hoosgelaya sharcigaas human rights oo kaleeto, dadka u dagaalamo xuquuqda bini'aadanka. For example, haddaa maqashay NGO oo kaleeto iyo inaad samayn kartid international organization. sidoo kale inaad soo dejin kartid ama samayn kartid wax la dhaho public policy and governance wax loo yaqaano, oo ah dadka public sida u maamuli kartid, sharciyadaas ugu soo dejin kartid, iyo inaad baran kartid academia and research. taasna waxay tahay inaad bartid ama aad samaysid cilmi baaris oo ku saabsan political science-ka iyo looga la dejiyo. marka inaad baratid sharciga iyo siyaasadda ayadana waxaa waaye wax aad iyo aad yacni mustaqbalka oo shaqo ah ku heli kartid, oo ayadana aad iyo aad dadku u anfacayso. midda xigta waxaa waaye information technology. ayadana waxaa barto dadka u baahan inay sameeyaan laha naqshadeynta oo website-ka oo kale, iyo programmingka, iyo amniga internetka, cyber security. boqolkaas wax oo hadhow aa kusii takhasusi kartid aa kusii dhex jiro. waxaa laga yaabaa inaa maqashay haddaa lagu dhaho caafimaad baro keliya inay jirto dhakhtarnimo iyo nurse ahaan. xitaa waxaa jiro wax loo yaqaano medical technicians, oo waxay sameeyaan laboratory testing, inay sameeyaan wax technical procedures oo teknolojiyada quseeyo kale, radiology technician, ultrasound technician, iyo biochemical engineering wax loo yaqaano. marka waxyaabahaas waa waxyaabo kala duwan oo qofka dhakhtarnimada markuu baranayo hadduu rabo uu ku takhasusi karo. cilmiyada kaloo la barto waxaa ka mid cilmiga badda oo kale. annaga dadkeena way yaryihiin dadka maariin barta. Soomaaliya waxaa qabnaa bad aad iyo aad u weyn, xeeb waxaa qabnaa dheer. marka in la barto waxyaabaha ku saabsan badda aad iyo aaday muhiim u tahay. haddii keliya aad dhahdid wax badda ku saabsanaa baranaa, waxaa ku takhasusi kartaa inaad noqotid dadka soo saara doomanka oo kale, ama doomaka naqshadeeya, ama doomaka mashiinkooda oo kaleeto soo saara, ama badda dhexdeeda dhismooyina laga sameeyaa. dadka qaar way ku takhasusaan dhismooyinka badda, dhismayaasha maraakiibta. waxaaba jirtaba maado dhan oo takhasus dhan oo la dhaho biology-ga oo badda, waxayna diraasaysaa noolaha badda ku nool, deegaankooda, iyo hadhow kaluumeysiga sida ugu fiican oo loo kaluumeysto, ama xilliga ugu fiican oo la kaluumeysto. yacni haddii xitaa wuxuu u baahan yahay badda loo ogaan karo baddaas wax soo saar ma leedahay, wax soo saarkeeda intee la eg tahay, xayawaanada ku jiro nolol fiican ma haystaan. annaga hadda baddeena sanado ka hor, hadda ma aqaan inay wili lagu soo tuuro, laakiin chemicals iyo wasaqaa lagu soo tuuraa oo baddeeni ka leysay. malaayga baddeena ku jiro kaleeto suntaas ay soo tuurayaan way saameynaysay. laakiin dad hadda hadday jiraan oo bartay sida loo ilaaliyo badda iyo xayawaanada ku nool oo kaleeto, sida loo protect gareeyo oo loo ilaaliyo oo loo badiyo oo markastana looga kaluumeysan karo, cilmi ah aa laga helaa. ma fahamtay? badda waxay leedahay waxyaabo oo yacni soo saarto. waxaa jirto dhagaxaana jirto, waxaa jiro badda xitaa xayawaanada ku dhex jiro wax qiimo laga soo saaraa. ma fahamtay? waxaas qiimaha le xitaa sida loola soo baxo cilmi la barto waaye, dadaa ku takhasusay. midda ugu dambeyso waxaa waaye duuliyayaasha pilotka. wadankeenana ma u badno dadka bartay actually. marka xitaa aad baranaysid pilotnimada keliya ma baranaysid sida diyaarad loo wado, waxaa jirto dhowr wax oo lagu takhasusi karo sidoo kaleeto, oo ah injineernimo, inaa yacni injineer gareysid oo soo saartid maxaa la dhahaa isheeg diyaarad, ama diyaaradda xitaa dad waxaa jiro ku takhasusa sida diyaaradda loo ilaaliyo ama loo dayactiro, mashiinaday ku shaqeyso iyo waxyaabahay ku shaqeyso dadaa soo saaro. maamulka duulimaadka dadaa barto. xitaa duuliska science uu leeyahay, science-ka oo duuliska xitaa dadaa barto. okay, intaasay noogu eg tahay. yacni tiraday ka bateen waxyaabaha aad baran kartid. ani keliya waxaa soo qaatay qeybaha ugu muhiimsan oo yacni wadankeena oo kale inay dadkeena bartaanna ay muhiim tahay. qof kasta oo rabo inuu ku takhasuso qeybahan oo dhan, yacni inay mustaqbal fiican uu leeyahay, uu markasta uu horumar ka gaari karo, oo yacni wax badan uu ka faa'iidi karo. hadda waxaa rabaa inaan usii gadagalo qeybteeni kale. waxaa muhiim ah inaad adiga naftaada baratid oo ogaatid waxa ay xiiseynaysid, oo ogaatid waxaan oo yacni aad rabtid inaad baratid mustaqbalka
maxaa rabtaa inaa kaga sii takhasustid oo yacni maskaxdaada si fiican inaa uga sii dhaadhicisid oo yacni qof wax fahamsan inaa noqotid. Marka sidee u dooran kartaa cilmiga ugu habboon oo jaamacadda oo weliba adiga kugu habboon? Insha allah waa kuwaana talooyinka qaar aa qaadan kartid. Midda ugu horeysa waxaa waaye inaad daraasaysid oo fahamtid xiisahaaga. U fiirso waxa aa xiiseynaysid iyo waxa aad jeclaan lahayd inaa mustaqbalka ka shaqaysid. Sidoo kaleeto waxaa raadisaa inaad la tashatid qof khibrad u leh waxaa rabtid inaad baratid. Waxaa raadinaysaa professor, macallin amaba qof ka shaqeeya oo ku jiro shaqada aa rabtid iyo maadada aa rabtid inaad baratid. La tasho macallimiinta, xirfadlayaasha ama dadka shaqadaasba ku jiro saa uga hesho talo fiican. Waxaa ka fakirtaa fursadaha shaqada oo wadanka ka bannaan. Suuqa tag, magaalada gal, waxaa soo wareysataa oo soo ogaataa maxaa la bartaa mustaqbalka, yacni dadkeena maxaa loo soo jeedaa inaa isdhahdid muhiim ah. Waxaa hubisaa suuqa shaqada ka jirto meeshii aa isdhahaysid wallaahi haddaa waxaas aa baratid waxbaa ka helaysaa yacni shaqo fiican, oo haddaba sii ogow meesha uu ka jiro gaabka. Marka ogaatid meesha ay gaabka ka jirto ama meesha oo caqabada ay ka jirto, isdhahaysaa gaabkaas inaa xaliyaa rabaa. Sidee ku xalinaa? Waa inaa baratid waxa markaas loo baahan yahay oo aa ku gaari kartid xalka maxaa la dhahaa ii sheegeen dhibaatadaas ama caqabadaas aa soo aragtay. Marka waxaa sameysaa inaad daraasaysid cilmiyada jaamacadaha lagu dhigo oo kala duwan, koorsooyinka lagu bixiyo soo ogow. Waxaa raadsataa wadanka dibadiisa ma waxa aad jeceshahay inaad baratid ma wadanka dibadiisa lagu bartaa mase wadanka dhexdiisa ku baran kartaa. Haddaa wadanka dibadiisa lagu baran karo, raadso maxaa la dhahaa sheeg minxooyin waxbarasho, amaba inaa adigaba yacni waalidkaaga haday kaa bixin karaan oo kale inaa yacni tagtid wadan oo yacni waxa la barto aa kasoo baran kartid, oona maxaa la dhahaa ii sheeg ama waalid ha kaa bixiyo ama minxa waxbarasho ku hel saa cilmigaas kusoo baran lahayd sida hadhow wadankaaga ula imaadid. Way badan yihiin waxyaabaha la baran karo. Ii sheeg markaa baratidna waxa aad sii dhex dooran kartid way kala duwan yihiin. Muhiimadda waxaa waaye kaliya inaa ogaatid adiga waxaa xiiseynaysid, waxaa jeceshahay maxaa la dhahaa ii sheeg mustaqbalka waxa aad rabtid inaa wax ka bedeshid. Adduunkan horumar waxaa lagu gaaraa in caqabad la xaliyo. Maanta waxaa maqlaysaa dad badan oo ka haray waxbarashada oo maanta horumar gaaray. Dad badanaa jiro adi oo yacni hadda caan ah oo waxbarashadii dhex uga haray, ku faanaya inay waxbarashadii ka hareen een wax soo saar lahaadeen ay lacag yeeshteen oo adduunyada iskugu lacag badan maanta ay ka mid noqdeen. Taas micnaheeda ma ahan dadka aanan wax baranin ee ka fiican yihiin ma ahan, laakiinse adoo wax baratay haddana waxaa la imaan kartaa xal. Dadkaas waxay la imaadeen xal, waxay arkeen caqabad jirto, caqabadaasna waxay ku fakireen sidii xal ugu keeni lahaayeen, sidaasayna horumar ku gaareen. Markasta waa inaa ku fakirtid markaa wax sameynaysid intee dhibaato ka jirtaa, intee caqabad ka jirtaa, intee horumarin u baahan. Maxaa la dhahaa ii sheeg adiga markaas meesha oo yacni kula wanaagsanaato markasta waa ka fakiraysaa. Waxaas markasta aa ka fakirtid ii sheeg waxay kaa caawinaysaa in aad dooran kartid maadada kugu habboon, cilmiga kugu habboon inaad sii baratid ama takhasus ku sii samaysid.